السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دلهانتي بمالك سو جوجتان كسو دhowaada halkani waa hamidowda aniguna waxaan ahay cabdiraxmaan waa barnaamijyadeennii dhiirigelinta shacbiga soomaaliyeed meel kasta uu joogaba barnaamijkan waxaynu rabnaa maanta inaan ku jir fiirino midnimada waxa ay tahay midnimadu waa shay qiimo badan waa shay qaali ah waa shay diiniyana laynoo faray caqligeennana inoo sheegayo aynu bannaankana ka aragno amaan dareemayno bulshooyinka midka ah sida ay awoodooda iyo horumarkooda iyo noloshooda ay u xaqiijiyeen saa daraaddeed baa marka waxaan jeclaysteen bal mawduucan inaan ku dul istaago barnaamijka marka waxaan jeclaa inaan kusoo qaato gabay oo tiriyey aan dheerayn aad u yar hal daqiiqa abwaan axmed xasan axmed shilke waa abwaan daayaro deegaanka soomaalida jooga maasha allah khayr allah siiyo abwaanku gabaygan yarkaa wuxuu ku sheegayaa muhiimadda ay midnimadu leedahay gabayga abwaan axmed shilke ayaynu marka uga jeednaa barnaamijkan inaynu dul istaagno danta guud ciday kugu tashaa tala wadaagtaan danta guud ciday kugu tashaad tala wadaagtaan danta guud ciday kugu tashaad tala wadaagtaan macnaha reer iyo qabiil iyo qoys alla waxay ku yihiin haba yaraatee ma jirto waxba kuma ah waxaa wax ku aad dantaada adigu aad gaadhayso cidda lagama maarmaanka ah ee kugu tasho taa unbaad wax isu tihiin nimaan taransigaaga iyo jeclayn taabagelidaada nimaan taransigaagiyo jeclayn taabagelintaada tarankaaga nimaan jeclayn iyo taabagalkaaga tabargalkaaga xoog inaad yeelato nimaaman doonayninba oo aan jeclayn oo aan muuqaagana jeclayn wax inaad noqotana aan jeclayn adigana aan ku doonaynin inaad tarantana aan jeclayn u tanaasul khayrkaa haddii tooga lagu gaadhi u tanaasul khayrkaa haddii tooga lagu gaadhi khayrkaa haddii tooga lagu gaadhayo u tanaasul war bal maantana bal tan u dhaaf taa haddii lagu gaadhayo horumar iyo wanaag talisyadii carbeed waa iyadaa cuni talaabiib talisyadii carbeed waa iyadaa cuni talaabiib khayrkaa u tanaasul haddii wax lagu noqonayo carabba ka fiirso talaabiib waa caasimadda israa'iil wataa ay cunayso geesiyaashii carbeed ee waxgalka ahaa yuhuud kama tallowdeen dhulkii looga soo tegay yuhuud kama tallowdeen dhulkii looga soo tegay meeshii markii horeba ingiriisku ku beeray ee la keenay mayna kasoo tallowdeenba dhulkii markii horeba ingiriiska ku beeray intay kasoo tagto dhul cusub mayna raadsateen qase kuma tarmeen kibir intay ugu taxaashaan qase kuma tarmeen kibir intay ugu taxaashaan intay qase usoo tallaabaan oy degaan oy ku tarmaan oy 50 sano 60 sano deganaadaan mayna tamashle qudus maalintay rabaanna masaajidka mayna xidheen markay rabaan dadka kumayna laayeen markay rabaanna mayna rusheeyeen markay rabaan ciddi rabaana mayna dileen falastiinna too kuma dileen 10 jirkoodii falastiinna too kuma dileen 10 jirkoodii dadka reer falastiinna kooda soo kacaya ubaxa ah kurka kabayna gooyeen turuq looma sheegteen intay taangi mariyaan turuq looma sheegteen intay taangi mariyaan xoog intii ay u sheegtaan inay ka xoog badan yihiin taangiyo caruur aan hubaysanin oo dhagax wata mayna dul dardarsiiyeen taraysadu ma jiidheen carruur 10 dhakhaatiir taraysadu ma jirteen carruur 10 dhakhaatiir dhakhtara iyo carruur lama dileen oo taraysadu laguma dhufteen xabaddan iska dhacaysa ee indhala-aanta cid walba mayna ku dhacdeen tayaxumi ma haysee waxaa wiiqay tabartooda tayaxuba ma haysee waxaa wiiqay tabartooda waa carabdi carab wey tafaraaruq weeye inaan la isku toosnayn tafaraaruq weeyiyo inaan la isku toosnayn
waata meesha aan uga jeeda barnaamijka tafaraaru qofkii uu ku dhaco ee midnimo waaya sida uu cadawgiisu uu mataqaanaa uga adeeganaya siduu rabo uga yariyo dhul iyo dhurba laga qaadayo haddii la isku wada tiirsan yahay tani ma joogteen haddii la isku wada tiirsan yahay tani ma joogteen jaamacadda carabta lagu dhahaya soomaalidu way ku faantantaa inay jaamacadda carab ka mid tahay maxaa meesha maxaa faa'iido ku jirta haddii la isku tiirsan yahay taniba ma taagnaateen hadday midaysan yihiin arrintaba ma joogteen carabi dunxumideeda wax taariikhi oo soo jiray weeyaan tallaabadii hore lagu dayay turunturoodeen war maalintii horeba hadday dhiilaayeen yax taniba ma joogteenba halkanba laislama soo gaadheen markay kala tifmeen ee barhkooda cadowga taageeray kala tifmeen tifid waxaa la yidhaahdaa maradu dun bay ka samaysan tahay dunta ugu horeysa afxidhkaa markay baxdo dun kale ka daba baxaysa tukale haylaama ayay maradii noqonaysaa sidii jeer tabcada loola helay dib uma toosaan tabcadu maxay tahay markaad wiilka legdamaysaan ee afariyo dhamme xagalsiin dee legdinta waa la garanayaa tabcadu marka waa kaartada weeyaan waa qorof dhexaadka iyo mataqaanaa sabaaxatada iyo sinsaaryada iyo wax kasta oo ninkaas sinta dhulka ugu dhigi karayso waa tabci iyo caqli iyo maskax wey innaguna tabtaasaanihiyo duul tacbiir madhan meelaan u soconnaaba ma garanayno inagu sidaa un baynu ka dhigannahay tusaaleheennu wakaa tusaaleheennu adigoon turaaliya lib iyo tamaniyen guusha inaad cidka xoog badanta u turtay ama laguu turay lib iyo abaal guul intaa midna adigoon tamaniyeynin sideed kula tacaamuli kartaa tuuga kugu foogan yaa intaaba midnaba kuguma jiraan lib iyo maaragtay guul aad qaadatay iyo libin aad gashay iyo turaale iyo isxilqaanba kuguma jiro seebaad marka aad uga badbaadi karaysaa dadku boobahayo adiga kuu socda sideed uga badbaadi karaysaa maxaa lagaaga leexan karaa inta uu ra kala tooyan ee nolol tusmaynayo yani inta uu rag kale uu sugayo tilmaansanayo ee uu nolol tusmaynayo qaydayo dhagax dhigayo higsanayo kafankiina kiitole ayaa loo tartamayaa adkaatay soomaali kafantooda ninka tolaha waa uu ninka mataqaanay ay u tartamaan ay u madax buuxiyaan ay hoos ordaan ninka kafantooda tola weeye wanaagooda kaga shaqeeya ma aha kafantiina kii tolaya baa loo tartamayaa kafantooda kii tolaya loo tartamayaa hadalkani hadal aad u weyn halkaa laakiin aan u dhaafa ma doonayo qofkii caqli laana wuu garanayaa dulucda ku jirta gudihiisa qofkaan caqli lahayna uma baahnayn loosha aniguna hadda waan ka yarsan taagleynayaa haddaynaan tabaalaha qadiyad kaga tallaabaynin tabaalo waa maxay dhibka kala daadsanaanta midnimo la-aanta muranka iyo qaylada iimaan la-aanta iska orodka iska hadalka xasrad abuurka huhaadiya been waxa haddaynaan midnimo haddaynaan qadiyad ku dhaafin hadaf haddaynaan ku dhaafin yool aan higsanayn hadduusan inoo caddayn tagtadiiyo wixii dheelmadeed shalay u taagnayd shalay tole wixii dhacay baad ogey intaa markay qortay baa waxay tidhaahday aabbo iyo hooyo anigoo ka xun inaana muddo idinla soo xidhiidhin waxba kama jiraan in guri aan degana dab ka kacay waxna kama jiraan inaan daaqad ka dhacay waxba kama jiraan madaxa inaan ka jabay waxba kama jiraan inaan nin isbarannay waxna kama jiraan inaan isguursanay waxna kama jiraan inaan uur leeyahay waxna kama jiraan in nin iga tegay oon wareerkaas i haysto
laakiin waxaan idinla soo xidhiiri waayey imtixaankii baan ku dhacay imtixaankaa lagu dhacay marka muxuu noqonayaa acceptable wax la aqbalo oo aan macno lahayn taasaa marka waxaa la yidhahdaa proper perspective aragti ku habboon markaa waxaa loo adeegsadaa sometimes in lagugu qanciyo dhib maanta yaalla kii shalay in lagu xasuusiyo si ka maanta joogaado hilmaanto taa waxaan uga jeedaa marka dulucda eraygan tacliin iyo haddaan laga dhexlayn raadad lagu taamo tacliin iyo haddaan laga dhexlayn raadad lagu taamo waka waxaasaa soo jiray iyo waxaasaa jira muhiimadda waa in laga dhaxlo wax nuxur leh waa tacab khasaar hadal waxaa tororoglaysaane waa tacab khasaar hadal waxaa tororoglaysaane isagaaba ismacnaynaya oo isfasiraya hadba kii xiniin lagu tuhumaa tiir la surayaaye hadba kii xiniin lagu tuhumaa tiir la surayaa qofkii loo dareemo inuu dareemo qadiyadeed uu leeyahay inuu waalan yahay baa laga soo qaadaa waxba inuusan garanaynin baa laga soo qaadaa mar haddaadan iimaan la-ayn oo aadan hamatulhamag ahayn wax alla waxaa tahay soomaali dhexeed ka tahay ma jirto haddiiba qadiyad iyo ummadnimo iyo karaamo iyo wax kuu muuqdaan ninuu waalan baa laga soo qaadaya inaad waalan tahay baa lagu arkaa walle inaad tasawdeen hadday dhimatay tawfiiq walle inaad tasawdeen hadday dhimatay tawfiiq tasow mataqaanaa tasow waa neef markuu kaa lumo ee aada raadiso ee aada weydo ee xero uu galo ee xeradaa dadka jooga ay yaahdiyaan ay baafiyaan ee wax sheegta la waayo ee uu muddo joogo wuu tasoobaa yacni waa laga samraa xaggana uu ku xalaaloobaa wuu tasoobay neefkaas wuu lumay oo waa la waayo wey marka waa tasawdeen haddii aanan la midoobin sida ayaad ku tasawdeen gabaygaas khayr allah siiya abwaan axmed xasan axmed shilke ayaanu maanta barnaamijka kusoo qaadanay muhiimadda ay midnimadu leedahay iyo dhibaatada ay tafaraqu u leeyahay intaynu barnaamijka mid lamida isugu iman doono waa anigoo cabdiraxmaan oo idin leh ha midowdo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu